madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ka qayb galay munaasabada casho sharafeeda oo gunaanad u ahayd heshiiskii dhexmaray wasaaradda isgaarsiinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta dalka. waxaa kale oo kala qayb galay munaasabadaasi madaxweyne ku-xigeenka xubno ka mid ah golaha wasiirada afayeenka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye xildhibaano ka socday golaha wakiilada Soomaaliland shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kale ganacsato. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdulaahi Suufi Jibriil iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa ka warbixiyay maraaxilkii uu heshiiskaasi soo maray iyo sida uu kaalin uga qaadan doono horumarka dalka. dowladda boqolkiiba 5 kow waa xagga regulation in maadaama uu yahay infrastructure qaran oo istiraatiijiya oo saameyn xoog leh in qayb ka ahaato dawladda. taas waa ta koowaad. talabaad, dawladda laftigeedu xafiisay leedahay, waxay u baahan tahay xogta dawladdu inay gaar haato oo aan dhex marin shirkadaha. mararka qaarkood adeegyo u baahan in la gaarsiiyo internetka sida dugsiyada iyo waxbarashada kale, marka mar walba in shirkadaha la sii maro ma wadaha. waxa kale oo iyaduna jirta maadaama uu yahay TPP waa in dawladdu ay qayb ka bixiso ay ku lahaato share inta ka badan way karistay dawladdu, laakiin shirkadaha u deysay inay qabto. su'aasha kale nagu soo noqota ahayd cid kale haday u baahato ma adeegsanaysaa. waa shirkad dhexe, sidaas saddexda shirkadood bay ugu furan tahay ayaa cid kale u baahataana ay u adeegsan kartaa. macnaheedu ma aha inay xidhan tahay saddexda shirkadood oo kaliya, iyagu way maal gashadeen hadhow laga kireynaya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa sheegay ahmiyadda uu dalka iyo dadkaba u yeelan doono heshiiskaasi isla markaana ay soo dhaweynayaan. arrintan waxay soo qaadatay waqti dheer, waana caawa inay guushu timaadana sharaf bay inoo wada tahay. kulligeen sharaf bay inoo wada tahay. dad fara badan ayaa waxay qabaan inaan ummaddu wax wada yeelan karin. waxyaalaha ugu daran ee qarankeena ama ummadda reer Soomaaliland had iyo jeer ku ah gilgiladka ama guuldarrada waxaa kow ka ah inaynan wax wadaagi karin. haddaynan wax wadaagina qaranna noqon mayno, shirkado horumarana noqon mayno. wakiillo ka socday shirkadaha isgaarsiinta ayaa iyaguna waxa ay dhinacooda muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin tallaabadaasi oo ay ku tilmaameen mid loo qaaday dhinaca horumarka. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi waxa isleeyahay anigu qof cid ugu farxadda badan leh waa madaxweynaha Soomaaliland, sababtoo ah muddada 4 sano ah dadaalka uu gelinayay ee mar kasta u jeclayn hawshaasi ay dhamaato oo muwaadiniinta walaalaheen inoo hayay adeega isgaarsiinta inay sida shalay u dhamaatay maalinta xilka yimid ilaa maanta inuu ku dadaalay runtii fikradana isagu runtii curiyay. wasiirka runtii u egmaday wasaaraduna qayb ugu weyn ukulahayo the right person for the right position. meeshaasi beriga uu ku magacaabay runtii nin aqoonteedii iyo kartideedii leh uu magacaabay. taasina madaxweynaha way caawisay oo haddii aan qof aqoonteedii lahayn tiknoolajiyadan iyo waxa laga sheekeynayo dee waxay dhib badan baa jiri lahayd. marka horta waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa dhammaan 3 shirkadood runtii ee muddada dheer la isku soo jiidayay iyo wasiirka iyo madaxweynuhu oo hogaamiyihii guud ee qaranka.